sidaan ognahay sanadkan bitcoin waxa ay gaartay meeshii ugu hooseysay dad badan ayaa ka qaaday baanig laakiin ma aaminsan tahay inay jiraan dalal urursanaya xilligan bitcointa si ay uga mid noqoto istiraatiijiyadda kayd qaran ee waddan dhan uu leeyahay tan iyo markii madaxweyne Trump uu qalqalgeliyay suuqa cryptocurrency ee laga saaray lacag bilaayin dollar ah suuqa crypto gaar ahaan bitcointa xaaladeedu waxay ahayd mid aad iyo aad u kacsan waxayna gaartay sanadkan meeshii ugu hooseysay sidaa daraadeed waddanka El Salvador oo ah waddanka kaalinta koowaad ku jira marka laga hadlayo bitcoin reserve ayaa waxa uu hadda iibsaday bitcointii ugu badnayd madaxweynaha dalka El Salvador oo ah madaxweyne aad iyo aad u taageera BTC ayaa waxa uu iibiyey bitcoin qiimaheedu u dhan yahay 7 milyan taasoo ah 7500 oo xabo oo bitcoin oo xilligan joogta dalka El Salvador waxa uu ka baxay heshiis hore oo la galay hay'adda lacagta adduunka ee magaceeda loo soo yareeyo IMF heshiiskaasi oo hoosta ka xariiqayay in waddanku uu hoos u dhigo iibsashada bitcointa waxaana arrintaasi u muuqataa in la xadidayo iibsashada bitcoin marka laga hadlayo dhinaca hay'adda lacagta adduunka ee IMF si wadamo badan oo adduunka ah oo hadda qorsheynaya inay samaystaan bitcoin reserve ay u qaataan deymaha hay'adda lacagta adduunka ee IMF waxa uuna sharcigaasi mamnuucay uu saxiixay madaxweyne Nayib Bukele in waddanku uu hoos u dhigo iibsashada bitcointa laakiin hadda waxay u muuqataa in waddankani uu jibiyey heshiiskii uu la galay hay'adda lacagta adduunka hogaamiyaha El Salvador oo ah nin aad iyo aad u taageera bitcointa waxay hadda u muuqataa xilligan in uu aaminsan yahay in aysan jirin cid ka hor istaagi karta in waddanku uu samaysto kayd qaran oo bitcoin ah iyadoo lagu jiro xilligan xasaasiga ah ee aad iyo aad u kacsan yahay suuqa cryptocurrency iibsashada bitcoin ee waddankan waxay uga dhigan tahay fursad aad iyo aad u ballaaran maadaama qiimaha bitcoin xilligan uu joogo meeshii ugu hooseysay oo la filayo inay soo socdaan dhaqaaqyo aad iyo aad u weyn tan iyo horaanta sanadka 2026 wax la sii saadaaliyay in bitcointu ay gaari karto wax ka badan 150 ilaa 200 kun